بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalayaal, sida aan ognahay waxaa dhowaan dhalatay oo aan ku guda jirnaa bishii macruufka ahayd ee dulxija, bishaas oo la guto waajibaadka xajkana waan ognahay inuu yahay rukn min arkaanulislaam ama tiir ka mid ah tiirarka islaamka. marka saa daraaddeed ayaan jeclaystay fariin kooban inaan duubo oo aan isleeyahay waad uga faa'iideyn kartaa xujayda hadda waajibaadka xajka gudanaysa iyo kuwa mustaqbalkaba. marka dhowr arrimood ayaan rabaa inaan kala dardaarmo xujayda, kuwa hadda gudanaya waajibaadka xajka iyo kuwa mustaqbalkaba xajin doona. qodobka koowaad oo aan rabo inaan kala hadlo waxa waaye, sida aan ognahay xajka koox ayaa loo aadaa, jamaaca shaksi looma baxo. marka koox walbana alxamdulilah waxaa loo sameeyey hoggaan. dadka badanaa kooxaha hogaaminaya waa dad khibrad u leh xajka oo hore usoo xajiyey, kala yaqaano goobaha waajibaadka xajka lagu guto, laga yaabo inay yaqaanaan luqadda iyo axkaamta xajka. runtii waa dad mas-uul ah oo ka mas-uul ah kooxdaasi oo ay hogaaminayaan. waxaa loo baahan yahay dadkaasi in loo hoggaansamo awaamirtoodii, in laga dambeeyo, in la ogeysiiyo wax alaale wixii tallaabo ah oo la qaadayo. kasoo qaad, qof ayaa doonaya inuu ka tago goobtii kooxda ay joogeen oo wuxuu rabaa meel ka fog inuu aado. kasoo qaad, maka ayaa lagu sugan yahay, waxaad rabtaa jiddo inaa aadid, inaad la socodsiisid waaye qofka ama hoggaanka kooxdiini waa inaad la socodsiisaa, waayo ayagaa kaa mas-uul ah. wax alaale wixii kugu dhaco ayaga ayaa la weydiinayaa. marka waa muhiim inaad ka dambeysid oo kala dambeyn meesha inay jirto waa muhiim. waxaa laga yaabaa inuu qofkaasi kasoo jeedo qabiil ka duwan qabiilka aad ka mid tahay. waxaa laga yaabaa inuu kasoo jeedo qabiil oo qabiilkaagi la dirirsan. waxaa laga yaabaa jinsiyad kale inuu leeyahay qofkaasi oo aad yasayso. si kastaba ha ahaatee, horta waa wax lagu xumaado in cunsuriyad lala aado xajka, laakiin way dhacdaa. waxaana rajaynaynaa qof walbo oo xajka aado inuu soo laabto asagoo waxyaabahaas oo kale ka saliim ah. si kastaba ha ahaatee, rasuulka sala allahu calayhi wasalam xadiid ayaa ka sugnaaday oo uu soo wariyey anas radia allahu canhu. xadiidkaas rasuulka wuxuu ku leeyahay: ismacuu wa atiicuu, maqla oo ateeca, wa in istucmila xabashiyun kaana ra'sahu zabiiba. xataa haddii hoggaan la idinkaga dhigo qof oo madaxiisii ama timihiisi ay yihiin sida zabiibka oo kale oo jafuu ah macnaa. marka waa inaad u hoggaansanaataa qofka hoggaanka ku ah. ilaah ayaa qofkuu doono. qul illaahuma maalika almulk tu'ti lmulka man tashaa wa tanzicu lmulka miman tashaa. marka ilaah baa qofkuu doono hoggaan ka dhiga, qofkuu doonana asaa ka qaado xilka. marka waxaa loo baahan yahay qofkaasi inaad u hoggaansanaatid. jinsiyaduu doona ha kasoo jeedo, qabiilkuu doono ha ahaado. waa muhiim inaad ka dambeyso, laakiin wax walbo inaad ku raacdo qasab kuguma ahan. rasuulka sala allahu calayhi wasalam xadiid kale oo uu soo wariyey ibnu cumar radia allahu canhumaa ayaa wuxuu ku yidhi: cala almar'i almuslimi alsamcu waltaaca fi ma axaba wa kariha. qofka muslimka ah waxaa waajib ku ah inuu
qofka amiirkiisii ah ama hogaamiyihiisa ah inuu ateeco oona uu ku ateeco wuxuu jecel yahay iyo wuxuu necab yahayba. marka waxaa necabtahay haddii lagu farana waa inaad adeecdaa, waxaa jecesha haddii lagu farana waa inaad adeecdaa sidoo kale. ilaa an yu'mara bimacsiyatin, ilaa haddii uu ku faro ama lagu faro wax macaasi ah ama wax dembi ah. fain umira bimacsiyatin falaa samca walaa taaca. marka haddii lagu amro wax oo macsi ah ama dembi ah, markaasi waajib kuguma ahan inaad dhegaysato ama inaad u hogaansanaato ama inaad ateecdo, midna waajib kuguma ahan. marka wax walba inaad ku raacdo ma ahan. marka hore waa waxyaabaha lagu amraayo waa wax caadi ah, waa inay ahaadaan waxaan diinta ka hor imaanaynin, wax amirta alle ka hor imaanaynin. ilan laa taacata limakhluuq fi macsiyati alkhaaliq. ma ahan inaad qof makhluuq ah ateecdo adigoo ku caasinayo khaaliqi rabbigii ku abuurtay. marka waxaa loo baahan yahay inaad ku adeecdo ood ku ekaato keliya waxyaabaha oo xaqa ah ama aan dembiga kuu keenin ama dhibaatada aan keenaynin. xajka markaa aadid waxyaabaha aad arkaysid waxaa ka mid ah mararka qaarkoodii waxaad arkaysaa qof koox hogaaminayo oo kooxdii amraayo inay degaan teendho oo aysan ayagii lahayn ama ayaga loo diyaarinin, oo teendho diyaar ah oo la firaashay oo koox loo firaashay oo lambar ugu qoran yahay ama calankoodii ka taagan yahay ama astaan kale leh oo loogu talagelin kooxdaasi ayuu amraya, wuxuu leeyahay dega. marka kooxdaasi markay meeshii degto dhibaato ayaa ka imaanaysa, waayo dadkii lahaa ayaa imaanayo oo waxay leeyihiin noogu baxa teendhadeeni. qofka marka oo marka horeba ku indha adeegay inuu dejiyo kooxdiisii teendhadaasi ayaa wuxuu la imaanayaa jidaal. xajkana looma baahna. allah subxaanahu wa tacaala aayaddii aan ku bilaabayay suu inoogu sheegay walaa jidaala fi lxaj ayuu yidhi, murun looma baahna iyo khilaaf xajka markii lagu jiro. marka dadkana waxaa loo baahan yahay oo kooxda ah haddii oo qofka amiirkoodii ah uu amro waxyaaba noocaas oo kale ah, haddaysan hataa marka hore ogeyn meel qalada inuu dejiyey, hadday gadaal ka ogaadaan inay u sheegaan oo asagii u nasteexeeyaan oo ay yidhaahdaan warniyo meeshaan naga guuri, meeshaan qolo kale ayaa iska leh, qoladii way timid way rabaan waxoodii in loo baneeyo waay. arrimaha kale ood arkaysid waxaa ka mid ah bas oo qolo kale loogu talagalay ama meel kale u socdo oo u jihaysan ayaa jidka in loo istaago la afduubayaa oo la leeyahay xujeedii kora baskani oo ku fariista boosaskiina camira, oo waxaa laga yaabaa daroowalkii in qoorsagaaro loo qabto. runtii waa wax lagu xumaado. waan soo arkay ayadoo la joogo carafa oo la rabo in musdalifa la aado ayaan arkay qolo oo qof oo daroowal ah intay isbaaro u dhigatay oo soomaali ah, intay isbaaro u dhigatay ayaa daroowalkii qoorsagaaro inta loo qabtay ilbaabka fur la yiriyaa dadkii xujayda ah oo qofka amiirka ah kooxdiisii ahayd la amray inay baskii soo camiraan, oo daroowalkii oo meel kale u socday lagu qasbay in uu meel kale aado oo dadkani marka hore danahooda u fuliyo. runtiina waa wax qalad ah, looma baahna. dhibaatooyinkaasi waxyaabaha keenaya waxaa ka mid ah wakaaladaha ku shaqa leh ama hay-adaha ama ejensiyada dadka xajka u wada oo qaarkoodii aan si fiican u diyaar garoobeynin ama maamulka uu ka xumaado oo teendhadoodii mar hore diyaarsanaynin, baabuurkii dadka lagu qaadi lahaa xujayda aan diyaarinaynin oo markaasi rabo maarkino dad islaameed waxay soo diyaarsadeen inay xoogaan. wakaaladahaasi iyo shaksiyadaha oo falalkaasi sameynayo waxaan xusuusin lahaa aayaadka rabbi. allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay walaa tabkasu nnaasa ashyaa'ahum walaa tacthaw fi lardi mufsidiin waataquu aladii khalaqakum waljibillata alawaliin. dadka horta marka hore waxaa laga yaabaa maarkino dhaqaale ahaan ayagoo fiirinayo waxyaabahaas inay sameeyaan, ayagoo gadaal ka yimid oo maarkino abaabulkoodii gadaal ka sameeyey, ama ayagoo isleh hooygaasi ha diyaarsanina oo lacag ha idin baaqato ama wax noocaasi ah inay sameeyaan falalka noocan ah oo qaladka ah. marka waxaan xusuusinayaa dadka inaysan ka nusqaaminin. dadka xujayda ah lacaga fara badan ayay la baxaan, uma baahna meelo raaxa ah inay degaan iyo waxa, laakiin waxaa loo baahan waxyaabaha aasaasiga ah in loo fuliyo.
si ay ugu fududaato ama sahal ugu noqoto waajibaadkooda xajka inay gutaan. marka dadka waa inaan laga nusqaaminin waxyaabaha laga ballan qaaday oo mar hore loo sheegay inay helayaan, sida teendho oo ay ku hoydaan oo ay xaq u leeyihiin. uma baahna teendho islaameed in la dejiyo dadkaasi. bas kale oo cid kale leedahayna in la saaro looma baahna. waxaa loo baahan yahay mid ayaga qaas looga diyaariyey in la saaro ayaa loo baahan yahay. dadka waa inaan lagu xumeynin arrintaasi, dhulkana fasahaad laga sameynin. waa in laga cabsadaa allahaasoo ayagii abuuray, khalqigii naga horeeyeyna abuuray. marka alle waa in laga baqaa. hay-adaha mararka qaarkoodii kuwoodii weliba faa'iidada fiirsanaya oo iska ilaalinaya inay qarashaad badan galaan, waxyaabaha ay sameeyaan waxaa ka mid ah in ay dadkii usii diyaarinin culummo oo wacyigelisa oo muxaadarooyin ujeedisa, axkaamtii xajka kala hadasha, su-aalahooda ka jawaabta, inaysan u diyaarinin oo ayagoo fiirinayo ayagoo u dan leh macnaa qarashaadka inay iska yareeyaan siay faa'iidada ugu badato. taana runtii dhibaatooyin badan ayay keentaa. waxay keentaa shaydaan inuu meeshii ka faa'iideysto oo dadkii ay ku mashquulaan fadhi ku dirir iyo waxyaabo kale oo maalaayacni ah, ayagoo loogu fadhiya inay maarkino alle caabudaan oo dikrigiisii iyo wax walba ku mashquulaan. rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuu inoogu digay hadalka badan. marka xujaayada waxaan xasuusinayaa hadalka badan oo maalaayacniga ah inay iska ilaaliyaan, inay ku mashquulaan cibaadada alle iyo dikrigiisa, inay tasbiixsadaan, inay tahliil sameeyaan, inay takbiir sameeyaan ayaa loogu fadhiyaa. marka taa ayaa loo baahan yahay, waqtigoodii inay maalaayacni ku dhuminin ayaa loo baahan yahay. marka rasuulka sala allahu calayhi wasalam xadiid kale oo uu wariyey ibnu cumar radia allahu canhuma ayaa wuxuu ku leeyahay laa tukthiru lkalaama bigayri dikri illah, ha badsanina ha ku hadlina hadallo badan oo ka baxsan dikriga ilaahay ama xasuuska alleh. fa ina kathrata alkalaami bigayri dikri illaahi qaswatun lilqalb, waayo hadalka badan oo ka baxsan dikriga ilaahay waxay keenaan in qalbiga ay adkaato. marka loomana baahna qalbiga in la adkeeyo oo duni iyo hadallo maalaayacni ah in laisku mashquuliyo xilliga xajka lagu jiro. marka waxaa loo baahan yahay in oo lagu mashquulo acmaal oo ajir looga helayo ilaah xaggiisa, iyo ma arkino waxyaabaha muxaadaraadka iyo ma arkino axkaamta xajka in si fiican loo barto oo lagu mashquulo cibaadada alle oo ma arkino meesha loo yimid marka hore oo loogu soo tegay shaqooyinkii iyo dunidii iyo wax walba loogu soo tegay oo qarashaad badan loo bixiyey. wixii meesha loo yimid ayaa loo baahan yahay in la fuliyo. marka ugu dambeyn sidaan ognahay sanadkan khasaaro musiibo ayaa ka dhacday xaramka. dad badan ayaa ku geeriyooday musiibadaasi. marka waxaan leeyahay marka hore inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun. ilaah u naxariisto intii ku geeriyootay musiibadaasi. runtii maalin kheyr badan iyo meel kheyr badan ayay ku geeriyoodeen dadkaasi xujaayda ahaa oo meeshii ku baaba'ay. intii dhaawac ahna waxaan u rajaynaynaa oo alle ugu baryaynaa inay si deg deg ah ugu kabsadaan oo ilaah caafimaad deg deg ah siiyo. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.